golaha amniga ee aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa dalka Taiwan waxa uu ku bogaadiyay xiriirka cusub ee ay la sameeyeen dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Geesta kalena shabakada wararka ee caanka ee lagu magacaabo Associated Press ayaa iyaduna maqaal ay qortay waxa uu ciwaan uga dhigtay dalka Taiwan ayaa waxa uu ku guuleystay fursad dahabi ah oo xiriir kula sameeyay dalka madaxa bannaan ee Jamhuuriyadda Somaliland. dhawaan ayay ahayd markii si rasmi ah qalinka ugu wada doogeen wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada Somaliland iyo dalka Taiwan heshiis dhexmari doona wadamadaasi. haddaba golaha amniga ee aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa dalka Taiwan ku bogaadiyay xiriirka ay la sameysay Jamhuuriyadda Somaliland. golaha ayaa ku sifeeyay xiriirkan mid baahi loo qabay. qoraalkan oo lagu baahiyay bogga Twitter-ka ee golaha amniga aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inay tahay war farxad leh inay arkaan dalka Taiwan oo xiriir la sameynaya dal ku yaala bariga Afrika waqti si aad loogu baahan yahay xiriirkaasi. golaha amniga aqalka cad ee dalka Mareykanka waxa uu intaa ku daray in dalka Taiwan xiriir qoto dheer ay la leeyihiin kuna saabsan yahay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, taageero farsamo iyo kuwa kale oo muhiim ah. dhinaca kale dowladda Taiwan oo ka dareen celisay hadalkan ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Jamhuuriyadda Somaliland ay la sameeyeen xiriir diblomaasiyadeed isna weydaarsadeen wakiilo kala matali doona labada dal, waxaanay xafiisyo ka kala furteen caasimadaha Taipei iyo Hargeysa. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Taiwan waxa ay sheegtay in xiriirkan saaxiibtinimo ee Jamhuuriyadda